Welcome to Abdifata Khalif channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan. Muuqaalkeen maanta waxaan uga hadli doonaa qodobo aad u muhiimsan. Qodobadan waxay anfacayaan arday kasta oo dhigta dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare, iyo arday kasta oo doonaya inuu ka faa'iideysto. Qodobka ugu horeeya haddaan soo qaadano waa tolerable oo ah dulqaad. Ardayga waxaa loogu baahan yahay inuu lahaado dulqaad. sidoo kale ardayga waxaa lagu doonayaa inuu niyad fiican u hayo waxa uu baranayo. sidoo kale ardayga waxaa lagu baahan yahay inuu lahaado goal, hadaf cad oo uu rabo inuu gaaro. For example, aniga waxaan rabaa in aan noqdo mustaqbalka dambe, ma waxaan rabaa in aan noqdo dhakhtar, caalim, mase macalin ama siyaasi iyo wixii la mid ah. qodobkan aad u muhiimsan oo ah time management. qofka ardayga waa inuu waqtigiisa maamuli karaa, waa in uusan waqtigiisa uusan ku dayacin meelo kale oo maalayacni ah. waxaa kaloo jirto qodob kale oo aad u muhiimsan oo ah good behavior. qofka ardayga waa inuu ahaado dhaqan wanaag, qof fiican dhaqankiisa uu wanaagsan yahay. ardayga waa inuu dhaqankiisa wanaagsanaadaa, waa inuu ka duwanaadaa ardayga kale aan waxba baran. sidoo kale waxaa jirto plan, waxa la yiraahdaa qorsho. arday waa inuu qorsho leeyahay 5 coming years, 5 sano soo socota maxaa rabaa in aan qabto, maxaa rabaa in aan sameeyo. Assalaamu calaykum.